18 May waa maalin ku qaaliye geyga Somaliland waa maalin ku sutan gooni isku taaga Somaliland gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Ibrahim Aadan Qabo ayaa maanta shaaciyay gudida qabanqaabada xuska sanad guurada 25aad ee gooni isku taaga dalka Somaliland ee 18 May ee gobolka Togdheer waxaana uu sidoo kale tilmaamay xuska 18 May xalfadan lagu maamuusi doono uu ka duwanaan doono xalfadaha kale ee lagu maamuusayo ee ka dhici doono gobolada dalka iyo dalka dibadiisa waxaana hadaladiisii kamid ahaa barasaabka maanta inaynu ku dhawaaqno gudidii qabanqaabada 18 May oo ay ka harsan tahay muddo bil iyo maalmaha siday caadadu inoo ahaan jirtay waa maalin inagu dheer oo ummadda Somaliland iyo shacabka Somaliland ba ku dheer 18 May waxaan magacaabayaa guddi qabanqaabo oo ka kooban 12 xubnood oo gobolka Togdheer magacaabista gudida qabanqaabada ee 18 May ee gobolka Togdheer waxay ka koobnaanaysaa gudidaasi waxa gudoomiye u noqonaya maayarka degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan waxa gudoomiye ku xigeen u noqonaya Maxamed Diiriyaxay waxa xogeyn noqonaya xogeyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdi Maxamed Ciise waxa afayeen u noqonaya gudida isuduwaha wasaaradda warfaafinta ilka case waxa gudida kamida oo kale oo ku darayna maarayaha wakaaladda biyaha waxa kamida Saare Maxamed Xuseen oo ay isuduwaha agaasimaha gobolada bari ee wasaaradda arrimaha bulshada Salmaan Maxamed Maxamuud oo ah isuduwaha maaliyadda waxa kamida Yuusuf Ibrahim Warsame isuduwaha wasaaradda warfaafinta waxa kamida Xasan Maxamed Xasan Jaamac Warsame gudoomiyaha waxbarashada waxa kamida Cabdikariin Cali Gaafa oo ah gudoomiyaha gudiga bacadlayaasha waxa kamida gudida ganacsatada Axmed Cali waxa kamida gudoomiyaha Unita Zainab Yuusuf Cabdi waxa kamida gudoomiyaha ururka Naaw oo deeqa weydaar waa 12 xubnood waxaan ka codsanaynaa sida ugu dhaqsaha badan inay hawshooda u galaan maadaama ay muddo bil ka hadhay waqtigii la qabanayay xuska 18 May waxaanu doonaynaa dadweynaha reer Burco iyo gobolkuba inaynu sanadkan muujino oo aynu si fiican maadaama aynu goobtii lagaga dhawaaqay 18 May xaruntoodii maadaama aynu fadhino inaynu qabanno wax ka duwan gobolada kale waxaanu ku soo casuumi doonaa madaxda qaranka heer qaran inay noo yimaadaan waxaanu sameyn doonaa wax ka duwan 18 Mayadii hore insha Allah Khadar Cabdirasaaq Salebaan Khadar Hanad shabakada caalamiga ee Adwanaag News magaalada Burco